Shanta jeel ee ugu adag adduunkani ama ugu halista badan. Jeelku waa hoyga lagu xakameeyo cid kasta oo gasha dambi xuquuqda dalka iyo tan bini'aadamkaba ka dhan ah. Waana meesha ay joogaan boqolaal dad geystay falal kala duwan sida dilka, dhaca, kufsiga iyo wixii la halmaala. Haddaba jeelasha ayaa ku kala duwan dhanka ilaalada iyo la tacaamulka ka dhexeeya askarta iyo maxaabiista, iyadoo jeelasha qaar ay maxaabiistu ugu nool yihiin sidii guryahoodii oo kale, halka qaarna ay u yaqaanaan amaba ay ku tilmaamaan cadaabtii adduunka. Waxaana xaaladda jeelka xukumi kara hadba dalka, jawiga iyo goobta ay ku yaalaan iyo sidoo kale cidda ka talisa jeelka. Maanta waxaan idiin hayaa 5 ka mid ah jeelasha ugu ilaalada adag ama ugu halista badan adduunka. Balse marka hore daawadayaal, inta aanan idiin bilaabin, fadlan saar subscribe channelkeena haddii aad ku cusub tahay iyo like. Wixii ra'yigaagana noogu reeb commentiga daawade. Kaalinta shanaad waxaa ku jira xabsiga EDX Florence ee dhaca bartamaha saxaraha gobolka Colorado ee dalka Mareykanka. Jeelkan waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah jeelasha ugu ilaalada adag adduunka, isagoo leh 6 qaybood oo lagu ilaaliyo helicopter. Dhammaan jeelka waxaa ku hareeraysan shabag lagu taxay koronto iyo kaamirooyinka lagula socdo dhaqdhaqaaqa maxaabiista, iyo weliba askar gaar ah oo dhex wareegaysa jeelka 24 saacadood. Maxbuuska looma ogola inuu ka soo baxo qolka lagu xidhay iyo inuu cid la hadlo toona. 1 saac oo qura ayaa maalintii loo ogol yahay inuu hawada arko. Kaalinta afraad waxaa ku jira xabsiga San Pedro. Xabsigan waxa uu dhacaa caasimadda dalka Bolivia. Si marka aad eegto, xabsigani waa mid ka duwan xabsiyada kale, mana laha ilaalo adag, balse maxaabiista ayaa iyagu xukuma jeelka sida ay u kala awood badan yihiin. Waxaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah jeelasha ugu halista badan leh adduunka. Gudaha jeelkani waxaa ku yaala dukaanno, rayslayaal, maqaayado iyo weliba goobo mukhaadaraadka lagu cabo. Sidoo kale maxaabiista qaar faamiliyadooda waa ay keeni karaan jeelka, waana ay la noolaan karaan. Lambar 3. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira xabsiga ay dadka reer Suuriya ugu magac dareen naartii adduunka, kaasi oo lagu xidhi jiray siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo horjeeda dowladda. Xabsiga waxa uu ka kooban yahay 2 qaybood oo leh qolal yaryar, isla markaana lagu dhex ciqaabi jiray maxaabiista. Jeelkan waxaa la furay sanadkii 1930, xilligaasi oo Faransiisku qabsaday Suuriya. Mid ka mid ah dadkii ka badbaaday jeelkaasi ayaa sheegay in maxbuus kasta la garaaci jiray 3 saac maalintii. Rajada qura ee maxaabiistuna ay ahayd geeri uun, balse jeelkani ayaa albaabada loo laabay sanadku markuu ahaa 2015. Kaalinta labaad waxaa ku jira xabsiga La Sainte ee dhaca magaalada caasimadda Paris ee dalka Faransiiska. Waana kan ugu xun jeelasha Faransiiska, waxaana la dhisay sanadkii 1867. Xabsigan waxa uu ahaa mid ay taalo naxariis darro iyo weliba nadaafad xumo. Maxaabiista goobta ku xidhan ayaa dhammaantoodba ah qaar u xidhan dilalka, kufsiga, draagiska. Qaramada Midoobay ayaa 3 jeer dacwad ka dhan ah xuquuqda aadamaha iyo dhibta taala jeelkani u gudbisay xukuumadda Paris. Kaalinta koobaad waxaa ku jira xabsiga Camp 22 ee ku yaala Kuuriyada Waqooyi. Jeelkani oo ah kan ugu xun jeelasha adduunka, isla mar ahaantaana ay hay'adaha xuquuqda aadamaha u dooda ay in badan ka qayliyeen. Waxaa ku xidhan in ka badan 10 maxbuus oo qaarkood ku dhasheen gudaha jeelka. Maxaabiista jeelku waxay la kulmi jireen jirdil iyadoo loo isticmaali jiray koronto marmarka qaar, balse cadaabka jeelkani yaalay waxaa la soo afjaray sanadkii 2012, xilligaasi oo ay Qaramada Midoobay albaabada iskugu laabtay jeelkani. Balse ogow, waxaa jira boqolaal jeel oo aad u xunxun, isla mar ahaantaana dadka ku xiran loola dhaqmo si bilaa naxariis ah oo ku yaala dunida dacaladeeda. Haba ugu daraadaan jeelasha ku yaala dalalka ay ka taliyaan digtaataradu sida Kuuriyada Waqooyi oo kale.